علماء الصومالية waxaan arki jirnaa iyagoo dadka u sharaf badan oo cid caawa dawlad ku soo hoydo xataa haddaysan xoolo qabin hal neef haduu u haray neefka loo qalo sida loo jecel yahay culimada war culimo qoran sida ma xamili karna nimayo culimada kitaabada sidatay oo hal neef cid haday haysato loo qali jiraan u baahanahay culimo qoran uma baahan culimo horumarka diidaysa uma baahan culimo sharafka ummadda dhaawacaysa uma baahan waxa noocaas yaana lagu qalbi culimada sharafta leh waxa laga rabo waxa waaye horumarka dalka inay ka shaqeeyaan inay dadka diinta baraan in mustaqbal laga shaqeeyo war hadda inta qor qaadana dhuuso mareeb dhexdeeda lagu dirro maxaa soo haraya waxba ma soo haraya waxba yeynaan kala gagamban siyaasaddu ma aha qiyaano siyaasaddu ma aha xawhay isu cagajuglayn ma aha siyaasaddu ma 30 sano dawlad la'aan ku dhuminay ilmihi ku dhashay oo 30 jir ah mustaqbalkooda lama yaqaan jaamacadii ka baxeen shaqo male kuwa baday aadeen saybe intay ilaahay waa tahriibinay badaha ku dhamaaday ma 30 sano kadib aan kala xishoonayna asaan leenahay qof basay rabtahay ma dhici karto taas dhibaato kasta oo ummadan ay uga bixi karto dhibaatada iyo xoog kasta waa inaan gelinaa cid kasta oo xawahay arintaas ka soo horjeestaan waa inaan afkaarku ana afan leena qoro kuma shaqeynaa baarlamaanka baarlamaankana afan looga shaqeeyaa afkeenan uga shaqeynayna cid kasta oo mustaqbalka ummadda inay hor istaagto damacad waxaan axmed ducaale geelle soo madaxweynaha galmudug ma ahayn oo 2 sano ay barhayst markuu hadda xildhibaano been ku dhaarinaa gaalkaciyo muxuu ku xukumo ugu shaqeyn waa ma waxaan noola sheega asaa aqbalayna waana nibayaho aan tashanno reer galmudug aan la yiraa xildhibaanadiina halka fadhiya masiirka ummadda gacantiina ku jira waxaan rabaa inaan idin sheego reer galmudug gaar ahaan reer dhuuso mareebeedo markii berri dambe madaxweynaha la doorto khamiisa oo 30 bisha 10 February markay ugu yaraato 4 mashruuc oo kan ugu yar 1 milyan bar ay ku baxaysa ayaa la dhaqaajina suuragal ma tahay in la yiraahdo laba madaxweynaha laga dhex dhisaa si aan waxba uga dhaqaaqin suuragal ma idin la tahay war waxa noocaasa Soomaaliya muddo dheer ay ku soo jirtay dad yawmi kala waa ka soo ilbaxeen galmudug ay ku soo harteen aan diidna waxa noocaas war aan diidno haddaan aan diidin ummadii kala waa ka harnay ma maqlaydeen maalin dhaweed 113 milyan mase 112 milyan oo loo qaybina dawlad goboleedyada hirshabeelle galmudug miyaad ku arkayseen oo yaa keena haddaan dawlad laga dhisay cidda la yaan waxba noola keenin ma dadkaanay u danaynaysa war waxaas aan iska diidno waxa dadku waa ka ilbaxeen aan diidno waxa noocaas Axmed Cabdi Kaariye siyaasiga inuu qof taageero ceeb ma aniga oo idin sheega baarlamaan 20 sano ku jiray waligay cidaan taageersanay 6 bilood ka hor la ogyahay xildhibaanada inta soo istaagay waxay ka cabsaan Axmed Cabdi Kaariye aan doorayna inay yiraahdeen oo maxay uga cabsanayeen ma ka cabsan karaan waa in ra'yigooda la ogyahay oo mujtamacu meesha uu rabo inuu codeeyo Axmed Cabdi Kaariye hadda ka cabsanaysi horta kuwa doorashooyinka ka herayo darbiyada fadhiya aadam marka madaxweynaha waa inaad doorataan si aan uga baxno dhibaatada hadda aan ku jirno maalin dhaweedaan markuu sharaxay ka sheegay xamar waxaan ku yiri 4 dawladood nin la shaqaystay Axmed Cabdi Kaariye ka jira Sheikh Shariif oo taariikh la yaqaan waaye Abdullahi Yusuf shaqada soo bilaabay dekada Sheikh Shariif ku xigay Xasan Sheikh ku xigay dawladda hadda socota ugu dambeysay wasiirka howlaha wasiir dawladda howlaha guud ka waxa la rabaa waxa waaye nin dawladnimada raba oo aan maalinba meel aaday oo dawladda timaad ku qanacsan waay baridan bu xataa haday dawladdaani meesha ka baxday dawlad kala timaad tabeecadu kula shaqaysto u leeyahay mid dawladaha isugu bedeli jiro midba markuu la shaqay jiro u leeyahay waa in la doortaa oo dooratiin adinkana saasa idin fiican waxa kale rabaa
inaan hadalkayga ku soo gabagabeeyo 2015 markii galmudug la yegleelay aniga waxaan dhisayay oo aan u rabay inuu madaxweyne noqdo Axmed Macalin Fiq hadda magaaladu jira inuu maqlaana waa laga yaabaa Axmed Macalin Fiq nimanka Cabdikariin dhisaayo hadda iga soo horjeeda qaarkood iyo aniga ubaxa isla jirnay lama qari karo waana laga adkaaday dagaal waxaa la galay oo si habsamiya loo legdamo dagaal siyaasadeed waana laga adkaaday Cabdikariin inta uusan makarafoonka ka deginaan u hambaliyay asaahir madaxweyne iyo soo dhawow maxaa looga cabsaday doorashadii saasheedo galmudug lagu gali jiray maxaa looga cabsana inaan darbiya fariistay xildhibaanana laga celish waa ay yaa xildhibaanada celi kara ma qof bani aadan uu celi kartaa ma ninta sargiisa jaabka ku haystaan anuu celi karaa warma leedin celi karaa waa adinka inta fadhiye qof leedin ka celina ma jira qof kastoo musharaxa oo shahaadada soo qaadatay intuu tagtiin kala heshiiya masiirka galmudug iyo waxay u qaban karto laakiin qof aan shahaadaba haysanin sida haday xildhibaan inta jooga sheegay oo gurigiisa jooga guriga la igu imaan waay xagga laga dhayaa guri ma la isugu tagaa waxa la isugu imaanaa siyaasadda la kala gadana 8 bilood halka lagu hardamay gurigayga lama imaan iyo xagga lama dhaw waxa siyaasad waa naqa waay saaxiibaday waxaan leeyahay gari laba nin kama wada qosliso ha soo tartameen weli murashaxnimadii waa furan tahay oo waa la sharxi karaa xildhibaanaduna waa furan yihiin idinkuna qofka aad u aragtiin inay galmudug badbaadiyo codka siiya ayaguna godadka ha ka soo baxeen galmudugna ha guulaysato aad iyo aad u mahadsan